bismillahi raxmaani raxiim awal assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. kusoo dhowaada janaalkeen wararkii ugu dambeeyey ee isboortiska. ciyaartii xalay daraamihii oo ku bilowday English Premier League maxaa ugu baahantaa guushii weyneed ee gaartay naadi kubadda cagta Liverpool Eketika oo furtay shabaqa naqdayna xidigii ugu horeeyay ee kulankiisa ugu horeeyay Premier League dhaliyay gooshiisii ugu horeeyay tan iyo sidoo kale saameyntii labada gool ee ku hormareen laga keenay kambagi Kiesa waalidiisii sanad ayuu sugaa leeyahay gool noocaas oo kale inuu dhaliyo. maxaa laga yeeray ciyaaraha maanta dhici doono saxiixyadii lala wareeyay kuwa qarka loo saaran yahay Kingsley Coman oo markaan ku biiray Al Nassr wax walba ugu baahantaa marka taariikhdii uu dhigay Mo Salah, Roberto Lewandowski oo afka furtay, Jules Kounde oo heshiis cusub u siixnaaday kubadda cagta Barcelona, Hansi Flick oo waxyaalo badan taabtay. soo dhawaad subscribe noo saar like dhasiin share garay oo la wadaaga asxaabtaada mahadsanid. soo dhawaad saaxiibayaal wararkeena ayaa gudagali doona sheeko dheer ma jirto horaa ka galeena muuqaalka inoo dheeraado marabo waan yaraargelina hadduu muuqaalka dheer insha Allah. kulankii daafurka English Premier League oo xalay dhacay weliba ku bilowday daraamo xun sidii la filayay si ka daran. waxaa la leeyahay waa markii ugu horeysay daraamo noocaas oo kale la arko in Liverpool ay laba gool ku hormarto laga keeno. waxaa ogeyn Community Shield-ka sidaas oo kale laba gool inay ku hormarto laga keeno. war maxaa ka qaldan Liverpool ma sidaan ay rabtaa inay horyaal ku dheesho? war ka jooga daraamihii ayaa bilowday laba gool degdeg ah naadi kubadda cagta Liverpool daqiiqadii 30aad waxaa shabaqa gaaray Eketika xidiga cusba 30aad markay marisay ciyaarta waa uu furay. sidoo kale Gagbo ayaa asigna 49 daqiiqo kaambiyada markii laga soo laabtay ku xigsaday oo gooshi labaad dhaliyay. waxay meeshaas markay gaarto daqiiqadii ciyaarta waxay socotay daqiiqadii 64aad gool ayay keentay naadi kubadda cagta Bournemouth 36 daqiiqana goolka barbaraha ee la timid toto ciyaarta waa in wareer ay keentay. wax walbo waxay noqdeen sidii la filaayay si ka duwan waa la yaabay ajaayib ay noqotay. sidoo kale marka macallinkii Slot ayaa bedel sameeyay induu hore u keensaday sidoo kale Robertson oo keenay sidoo kale gooshi laba halka markii laga dhigay kadibna wuxuu keensaday Curtis Jones iyo Gomes xidiga daafac ahaa. waa la wareeray ciyaarta u socotay marka waa laga bareejiyay haddana kadib bareejada kadib 82 daqiiqo waxaa garoonka soo galay Kiesa soo galay. Kiesa markuu soo galay ciyaarta waa ay qasantay weerar Liverpool ugu dambeyn 88 daqiiqo waxaa imaaday goolkii taageerayaasha ee u wada istaageen ee Kiesa uu dhaliyay ayaa imaaday oo 88 daqiiqo wuxuu ka dhigay 3 gool iyo 2 gool. inaba caadi ma ahan ciyaarta weli sidii ma aysan ku dhamaanin. waxaa la sugayay goolkii Mo Salah oo dhaliyay daqiiqadii 94aad ee ciyaarta oo go'aamisay in ciyaarta meeshaas ay ku dhamaatay. Mo Salah ayaa asigana bixi kara gool la'aan xalay toole laakiin ma dhicino daqiiqadii 94aad ayuu shabaqa gaaray weliba gool cajaa'ib leh. nin garab midiga ka soo galay oo ayuu u ekaaday xidiga garabka weerarka midigta ka dheelo qaab ka fiican ayuu u soo xarooday ninka. marka ciyaartii xalayna 4 gool iyo labadaas ay ku adkaatay. maxaa ka baranay? waxaa ka baranay ciyaarta in xamaasadii English Premier League horta oo soo laabtay ka hadal ma lahan. wax walbo marka waxay noqdeen sidii la filayay si ka daran. English Premier League is back. hora kugu sheegay in daraamo la sugi doono wax walba marka ay noqon doonaan bilow fiican. Premier League waa ognahay Premier League ma laga sheekeena horyaalada kale bahal horyaal iska yaryarooto waa laakiin English Premier League naadi yar xataa da u bixaysid wax walba fili kartaa wax walba dhici karo. marka kulanka ka hor waxaa la xusay in toosan bilaawanin Jota oo shil gaari ku geeriyooday emotional ay wada ahayn ciyaartooyda. wax walba marka waxay noqdeen qaab xun ayay ku bilaawdeen inkoo ciyaartooydii niyadooda siiyaan Jota iyo familkiisa iyo walaalkiisaba. marka inaba caadi ma ahayn. ciyaarta markay soo dhamaatana waxyaabihii laga bartay waxaa ka mid ahaa in Kiesa uu dhaliyay gooshiisii ugu horeysay ebed ee Premier League ee naadi kubadda cagta Liverpool tan iyo markuu ku soo biiray sanad ayuu sugayay inuu gool u dhaliyo naadi kubadda cagta Liverpool. dhaawac loo iska ahaa seasonka marka waxaa la rajeynayaa seasonkiisa inay noqoto. sidoo kale Slot ayaa la arkay markuu ninkan goosh dhaliyay inuu maskaxdiisa taawanayo leeyahay
caqli ayaa ku keenay. Sidoo kale Eketika ayaa asigana bandhigiisa caadi ahayn soo bandhigay asigoo noqday xidig kale oo muhiim u ah naadiga kubadda cagta Liverpool. 3 gool miya ayuu sii maraa labadiisa kulan ugu horeyso naadiga kubadda cagta Liverpool oo dhaliyo 2 gool iyo gool caawin ah inaba caadi maahan. marka Eketika waa ka keesa sidoo kale waa ka Liverpool daraamiye xale waxba bismillah 37 daqiiqo 49 daqiiqo 64 36 in what a night wallahi bila xale ciyaara ku dhaaftay hadaadan daawanin fans Liverpool hadaa taayna hambali ayaa ku leeyahay. sidoo kale Mo Salah ayaa la arkayo emotional oo qiireysan dhahayo waa ku xiisay walaal marka ninkaasna Jota ayuu u ilmeeyay. sidoo kale Gagba la arkayo gooshi uu dhaliyay inuu u dabaaldegay saaxiibkiisa Eketika. sidoo kale dabaaldegiisa waa uu muujiyay oo ku taageerayo familka Diogo Jota iyo walaalkiisa dhahayna waa nila qabnaa murugada. sidoo kale waxaa warar ka mid ah Mo Salah ayaa noqday asigana xidig kale oo muhiim ah kadib 10 sano oo xiriir ah oo dhalinayo kulanka furitaanka gool. kulan walbo furitaan 10 sano la soo dhaafay gool ayuu dhalinay Mo Salah. marka inaba caadi maahan xidiga ugu hore ayuu noqday 10 game oo furitaan oo 10 sano xiriir ayuu shabaqa gaaraya. Wayne Macaroni 8, Alan Shearer 8, James Vardy 8, Frank Lampard 8 inaba caadi maahan. mar Aaron Rodgers wax laga weydiiyay ciyaarta ayuu yiri waa yaabana ciyaarta sida ku bilaabatay iyo sida isku bedeshay wax maskaxda galay ma ahayn ayuu yiri. daqiiqadii markii wuxuu dhahay ciyaarta nagala bareejiyay waxa soo xasuustay Jota martuu ciyaarta dayta ninkii ii go'aamin jira soo xasuustay laakiin ma dhicin mahay ayuu dhahay waa raalgelina familka marka inaba caadi maahan. sidoo kale Eketika ayaa noqday xidigii ugu horeeyay naqda xidigii ugu horeeyay kulankiisa ugu horeeyay ee naadiga kubadda cagta Liverpool dhaliya gooshiisa ugu horeysay ee English Premier League. tan iyo waxaa leeyahay saaxiibkiisa waxaa hore u sameeyay. sidoo kale Eketika ayaa noqday xidigii ugu horeeyay ee Liverpool ka tirsan oo dhaliya kulankiisa ugu horeeyay caawinna sameeyay goolna dhaliyo goolna caabiyo Premier League. tan iyo waxaa leeyahay Darwin Núñez 2022 waa xidigii ugu horeeyay ee sameeyay inuu gool dhaliyo goolna caabiyo ayaa leeyahay tan iyo 2022 markaas oo Darwin Núñez saftay goolna dhaliyo goolna caabiyo inaba caadi maahan. marka Eketika asigana waxa waay bandhigiisa high level ayuu ku bilaawday waa arki doonaa meesha ku dambeeya laakiin hadda ninkii wax ka sheegay Eketika inaba caadi maahan sida u jiidanayo kubad controltaankeeda dhiibitaankeeda dhaqaaqa marka ku sii horoobka dhaqaaqa ninka ama kula joogo adiga Benoni ku sii daahirta. marka waa arki doonaa kulamada soo socdo waxa la soo calaamiyay kale. sidoo kale xidiga 2 gool ka dhaliyay Liverpool ayaa taageerayaashii iyo wixii cunsuriyeeyeen Premier League-na waxay soo saaray warqad dheer waa arki doonaa meesha ku dambeeyso baaritaan dheer ayaa la gali doonaa inaba caadi maahan. naadiga kubadda cagta Liverpool labadii kulan hadda la soo dhaafay Community Shield iyo horyaalka daafacooda qalqal ayaa laga dareemaya. waxaa daafac ahaan naadiga hadda ku soo biiray Lione oo ka imaaday Parma inaba caadi maahan. daafacaas waa u yaryahay laakiin waa arki doonaa wax qabadkiisa iyo sidoo noqon doona. Aaron Rodgers waa ka Liverpool ayaa noqotay tan iyo 2013 kulan walbo furitaan ah waa ay badinaysay ama bareejo galeysay 3 kulan oo kaliya ay bareejo gashay tan 2013 halka inta kale bareejo ay gashay inaba caadi maahan. Mohamed Salah ayaa asigana soo galay booska shanaad ama afaraad dhexda kala sareenta horyaalka English Premier League ciyaartooyda ugu goolasha badan Premier League wuxuu ka soo galay booska afraad ama shanaad laba ciyaareen isku haysato Alan Shearer koowaad Harry Kane oo labaad saddexaad Rooney. sidoo kale Cole iyo Mohamed Salahna waxay ku wada jiraan booska afraad oo min waxay haystaan 187 Sergio Aguero waa laga soo tago maadaama oo hadda saaxada kubadda cagta ciyaareenin 184 ayaa loo soo tagay. marka waa arki doonaa Mohamed Salah iyo rajadiisa ku guuleysiga gaaritaanka heerka
ugu sareeya ee gool dhalineed ee English Premier League. sidoo kale wararka waxaa ka mid ah insha Allah hadalheynta ayaa ku sii darinaa Julius Kunde ayaa saxiixay heshiis gaara ilaa 2030 waa hore ayuu ballan qaaday haatan qalinka ayuu ku duugaaliyay Julius Kunde markaan waa xiddig ka tirsan naadiga kubadda cagta Barcelona ilaa 2030 ninkii u baahday inuu qaatan 1 bilyan waa inuu miiska saaraa. Hansi Flick oo markaan ka hadlay xiisii ka taagnaa suuqa kala iibsiga arinkii Inigo Martinez oo naqday arin la yaab leh wuxuu dhahay anigu shoog ay ul noqotay dhamaan aniga staafkii waxaa la yaabna qaabka u baxay oo ii sheegay waana la yaab ayuu yiri marka inaba caadi ma ahayn Hansi Flick. marka sidoo kale Robert Lewandowski oo wax badan ka hadlay xitaa amaan Xavi Alonso yiri macallin fiican waaye bandhig fiican ayuu ku jiray haatan waxa rajeynaa meesha uu fiicneed inuu ka mid noqdo walow Real Madrid oo cadow oo joog haddana wuxuu dhahay waa unbelievable ninkaas wax la xaqiri kara maan. sidoo kale mar ayuu ka hadlay Lamine Yamal oo yiri Real Madrid aad ay u doonaysaa inay hesho xidig la mid ah Lamine Yamal marka man heli doonto dhahay laakiin waa u baahan tahay xidigaas oo kale. sidoo kale mar oo ka hadlay Lamine Yamal waa xidig fiican oo talented waa new Messi la shaka waa dhahay meelaha waa laga dhahaa Messi cusub waa laakiin ninkaas arko tababar iyo ciyaar ninkaas sheegi kara inuu Messi cusub yahay marka ninkaas top player waaye waa arki doona ayuu yiri. sidoo kale naadiga kubadda cagta Barcelona ayaa heshiiska ama qandaraaskii ee kula soo wareeyay Rashford iyo Garcia goolayi ah ee haatan register gareysay ayaa leeyahay. wararka ugu dambeeyay ayaa sheegay waxay awood u yeelatay inay register gareyso Marco Rashford iyo goolaha Garcia waana ciyaari doonaan la fila hadaysan ciyaarin kulankana kulamada soo socota ay ciyaari doonaan inaba caadi maahan. waxaa naadiga kubadda cagta Al Nassr ku biiray Kingsley Coman oo ayaantan bal hadalhay inuu aadi doono dhankaas Sacuudi Carabiya waa tanana uu ku biiray official waa soo bandhigay nasiib wacan Coman oo la ciyaari doono Cristiano Ronaldo, Joe Felix, Sadio Mane wala shaxa meesha ka soo baxday. sidoo kale Jose Pep Guardiola oo mar wax laga weydiiyay kulanka caawa ciyaari doono iyo Premier League yes waa ku guuleysan doona ayuu yiri horyaalka Premier League 6 sano oo soo dhaafana waa soo qaaday 6 koob horyaal ayaa haysta haatan waa rajeyna ayuu leeyahay marka ninkaasan afka ayuu furtay. sidoo kale Barcelona ayaa la sheegay in Due oo markaan target u yahay Due oo aan qiinay PSG xirfadla ah new Neymar la dhahay ayaa markaan loo saadaalinaya inuu mustaqbalkiisa dhawaan ku biiri doona naadiga kubadda cagta Barcelona waa arki doona meesha ku dhamaatay. sidoo kale Gonzalo Ramos xidigii hore sidoo kale Gonzalo Ramos ayaa markaan lagu soo waramayaa inuu qarka u saaran yahay ku biirista Newcastle United. Newcastle aad u doonayso inay weeraryaano iska soo dhisto maadaama isaaq arintiisa meel xasaasi ay gaartay markaan waxay u wactaa leeyahay Gonzalo Ramos xidiga PSG ka tirsan dhawaan kula guuleystay UEFA Super Cup. sidoo kale xidigaasna aad ay u doonaysaa leeyahay Newcastle waa arki doona wixii ka soo kordho muuqaalka inta ku kulmi doono sidaas iyo amaana Allah bye bye subscribe like share and abonnement.